qayb ka mid ah soo wadnaha yeeshay markaan aan aadno dalka Australia aan markaan u gudubno gaar ahaan magaalada Melbourne waxa hadda Melbourne waxa hadda qad taleefon ku jira Cabdiqaadir Ibrahim Caday oo gudoomiyaha ciyaaraha fudud Soomaaliya waxa loo yaqaan Somali Mini Football oo ku sugan garoonka garoon ku yaala magaalada Melbourne ee dalka Australia waxa halkaas ka dhacay ciyaaraha fudud Soomaaliya ka qayb galayso waxa tartankaasi Soomaaliya u batay dhalinyarada Soomaaliyeed oo Muqdisho iyo qaar ka tirsan gobolada dalka iyo guud ahaan dibadda qaarkood laga waday ay ku jiraan waxa hogaaminaya gudoomiyaha ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Mini Football Cabdiqaadir Ibrahim Caday oo qaadka taleefanka Australia si toos ugu jira Cabdiqaadir Maqle ها وكما قال سؤاله gudoomiye soo dhawaw ciyaaraha fudud Soomaaliya Mini Football Club shalay waxa ay ciyaareen Soomaaliya kulankii koowaad waa laga adkaaday ciyaarta halkii ka jircsaneed iyo sida ay guuldaro shalay ku dhacday iyo kulankii labaad xilligaad wajahaysaan iyo ciidaad wajahaysaan warbixin naga sii TV qaranka waa islaamaya bahda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa ama daawaneysana macnaha salaan waxaan ka soo salaameynaa wadanka Australia magaalada madaxdiisa saddexaad ee lagu magacaabo Bath run ahaantii bahweynta isboortiga Soomaaliyeed ee guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed aad uga dhargan yihiin in ciyaaraha adduunka ee mini footballka ee ka dhacaya dalka Australia magaalada Bath ee 32 wadan oo adduunka dacaladiisa ka kala yimid inay ka soo qayb galayaan waa laga wada dhargan yahay Soomaaliya sanadkan waxay isku group noqdeen Mexico, Switzerland, Moldova wadanka afraad wuxuu noqday Soomaaliya ciyaartii koowaad ay ciyaareen shalay oo taariikhda 2 ahayd maalinimada Arbacada saacadu markay ahayd 2 duhurnimo ayay fooda isdareen Soomaaliya iyo Switzerland run ahaantii waxaad moodaa qaybtii koowaad ama gelinka hore inaan anaga aad uga firfircoonayn ciyaartina ay ku soo gabagabowday 2-2 kadib dhalinyaradii anaga aan wadnay runtii aad iyo aad ciyaar wanaag u muujiyeen inkastoo dhalinyaradii aan ugu talagalnay ee aan ka keenin lahayn wadanka gudihiisa iyo gobolada in loo diiday fiisihii oo ugu horeeyo macalinka labaad Muxudiin Cambar Qamiis sanadkan inaan taariikh dhigno oo ninkaasi halyeyga ah inaan keena aan rabnay oo suurtoobi weysay marka dhinaca farsamada garoonkii oo xoogaa yar moodo garoon quality uu san ahayn dhalinyaradii Soomaaliyeedna ay wateen kabo hal joogo kaba roob yarna waa daay marka sabiixiya badnaa marka sidaas darteed ayaa dhalinyaradii macnaha looga badiyay inkastoo way aragnimadana ay meesheedii ay ahayd laakiin waxa ka soo qayb galay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kala yimid dalka Mareykanka uu hogaaminayay Xasan Goodax iyo dhalinyaro kale oo ka timid dalka Norway iyo Ingiriiska Norway Canada iyo America marka intaas qolada Canada ka timidna waxa hogaaminayay Cabdirashiid Bakin ayaa hogaaminayay qolada Mareykanka waxa hogaaminayay gudoomiyaha mini footballka North America Mr. Xasan Goodax marka ciyaartina sidaas ayaa macnaha nal kaga badiyay ciyaarti kalena maanta aan ciyaari doonaa hadii ilaa yiraahdo oo taariikhda ay tahay 4 bisha aan ciyaaraynaa waxaan la ciyaaraynaa kooxda Mexico oo sanadkii ugu dambeeyay ee 2017 finalka soo baxay ayaga iyo Czech Republic oo kaalinta labaad ay soo galeen waa ciyaar kulul aad u kulul laakiin dhalinyarada anaga aan wadano kuwii maqnaa oo ka maqnaa ciyaartii shalay runtii kuwa kale ka firfircoon ayaa noo yimid oo nooga yimaadeen Minnesota wadanka Mareykanka oo ugu horeeyo yarka Zakaria waxa kaloo jira wiil kale oo qaranka Soomaaliya oo ciyaaray Uganda ka ciyaaray kooxdii Tanzania ka badisay oo yiraahdo Cabdirashiid Cabdulqaadir Ibrahim Maxamed Xasan iyo Shiina intaas aad ugu firfircooneed oo ayagana professional oo qurbaha ka ciyaara kubadda waxaana rajaynaynaa ciyaarta bari dhici doonta aan la ciyaarayna Mexico in aan ka fiicnaan doono ama aan ka badin doono ama aan barbardhac noqon doono haddii Ilaahay naftana u gaarsiiyo
gudoomiye marka laga hadlo waxaa tiri waxaa ku adkaaday fiisihii ciyaartooyda laga wadi lahaa Soomaaliya qaarkood iyo macallinkii xogeenkii labaad oo macallinkii labaad oo ah Camar Maxudiin Camar Khamiis oo ah ciyaaryahan Soomaaliyeed aad la yaqaan lajana oo haliyay Soomaaliyeed hadda waxa joogtaan ama waa isku aroosteen qurbahaas ka kaltimaadeen hadii ahaaleed America iyo Australia iyo ku joogay Europe oo isku timaadeen hadda rajada waa sidee kulanka bari la wajahay waxa jirta inay wajahaan Mexico oo dalalka sportiga gaar ahaan kubadda cagta dadka wadamada lagu qiimeeyo kamid ah oo koobka adduunka kubadda cagta adduunka caadiga ah wax weyn ka qabto oo lagu yaqaano oo ciyaartooy waaweyn ka soo baxeen sidoo kale tartankan mini footballka imisag ayaa garoonka lagu galayaa shalna meeqan kaga badiyay su'aal aad u mahadsan tahay horta xiriirkani waa xiriir adduunka ku cusub ciyaartii koowaad ama ciyaarihii adduunka koowaad ay ka dhacday wadanka Mareykanka waxayna ahayd 2015 kii labaad Tunisia ka dhacay sanadkii 2017 kii saddexaad waa kan hadda Australia anaga maanta aan joogno aad hadda naga wareysanayso oo 2019 ciyaartooyda badankoodna ama ku dhamaan gabi ahaan waxaan ka keenay sida hore kugu sheegay qurbaha ayaan ka keenay waxaan noo saamixi waayay fiisiyaashii loo diiday dhalinyaradii aan u codsanay runtii aan ahayn wax Soomaali kaliya ku koobanay wadamada Afrika ka yimid badankood ay macnaha oo loo diiday waxaan ciyaartana waxa la ciyaaraa waa mini micnaheedu waxa wax yar macnaha garoonkina waa yar yahay tirada oo ciyaartooyda oo 12 ka ciyaaraysan way ka yar tahay annaga aan ciyaarina waxay ahayd 5 ciyaartooy iyo keeper isku jirkooda waa 6 iyo 6 ayaa la wada ciyaarayay barnaamijkan wuxuu ahaa live oo shalay laga soo daayay ciyaarta dadweynaha dhan laga daawanayay runtiina hambalyo badan aan ka helnay ummadda Soomaaliyeed iyo wasaaradda sportiga iyo dawladda intaba hambalyo aan ka helnay SNTV na mahad gaar ah u soo jeedinayno maalintii aan soo bixinay wareysi dheer ayay naga qaadeen oo waxa waaye amba bixida oo waxa wareysigaasina naga qaaday TV-ga qaranka ee magaalada London runtiina waxaa fadhiyay aniga iyo kabtanka kooxda oo Maxamed ahaa iyo Maryan Cadow oo ayadana runtii ahaa qaybta gabdhaha noo qaabilsanaa ciyaartii shalay dhacdayna runtii weerar celis 2-2 markay half time ku dhamaatayna markii dambe gabagabadii 50 daqiiqo la ciyaaraa oo saacadaha la ciyaarayna way yar tahay oo 25 la ciyaaraya su'aasha adii ay weydiisana meeqay ku dhamaatay ciyaartii ama meeqa la idinkaga badiyeen hadii aan kaaga jawaabo waxa way nooga dhamaatay 6 gool oo ay dhaliyeen kooxda qaranka ee Switzerland iyo kooxda qaranka Soomaaliyeed oo ay dhaliyeen 2 gool 6-2 ku dhamaatay haddana waxa dhinacayga fadhiya gudoomiyaha oo xiriirinta diasporaha wakiilka North America ayaa dhinacayga fadhiya hogaaminaya wafdigii hogaaminaya ka yimid North America ka hogaaminaya runtii ciyaartooy tayo leh keenay waa Xasan Goodax marka waxaan jeclaan lahaa inaad laba kelmad siisid Xasan haday suurtagal ay tahay Xasan waqtiga naga sii laanaya kulanka bari maxaad rajeynaysaa Xasan ugu dambeyn okay kulanka brito waxaan rajeynaynaa waa ku sheegay horaan kugu sheegay Mexico waxaan kugu yiri waa kooxdii finalka soo baxay sanadkii ugu dambeeyay tii American ayada finalka soo baxday waxaan la hadlayaa Goodax waxaan keenay ciyaartooydan culus hadda aan ka keenay North America oo Xasan hogaaminayo iyo ciyaartooy kale oo Soomaaliyeed oo Australia marka isu geysano kullayto tartanka fardo leesna macnaha leesna saaran leeskuma faano hadba kii dheereey waaye laakiin anaga rajadeena waxay tahay in aan macnaha badino ama barbardhac aan keeno horaan kugu sheegay aad iyo aad ma staa gudoomiye ma tahay